Well, that's the end of that for now. Oh, great vision. Why have to introduce it? وش سويش؟ Leefa ma ahan ciyaaraha soo saameyn aan umrisi. Marka na ku beesho noocan ama هلو حبيبي حياتي قلبي. سكي maxaa qaldan taleefanka maxaad iiga qaban weyday نو تلف مكان قوي حبيبي قال مسؤولة كجري مسؤولة كجري ده تلف أصع الرمى منه وجركي قيب قين قيب نوي قلالنت هاي قدرتها maxaa iskaga dhamaysan weyso oo ku sugi lahaay ما حاس صور مشتا مع تلف كنا يسوي عيسى دريمة waa maasan tahay boqorkeyga waxaa raba inaan kuu sheego lacagta xabaaradda inaan kuu soo dhigay waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ka qaadataa seriously بقرة دي هي بيش ما دمانين بقرة waan ku fahmi karaa noo dhammaadka bishaa lagu jiraa صح كجعلها مع المركز سايفات أنا جولي فاهم بيفهم يساك هذه حبيبي هذا كجعلها haddii aan aniga ku fahmin yaa kaloo ku fahmi lahaa anigaba sidoo kale waa ku jeclahay أنا مين أعرف أنا أصلا كذا سكاجا ديو okay maxaa waayana ii sheeg buu إن كاميرا الفيديو فرو حارب أنا كنت صار أوكي okay حبيبي موجودة waaw sariirtii waa bedeshay وبدل الديزاين كي ولا ما بدل أي واحد كلر كده ديزاين كده تنسان بينفورم سافيري qurux wallaahi hadda iskaabulnimadii ka baxday saanaa buu نو ما كبحن اسكابول نمد ولي ما كبحن marka adii maasay ka baxaan ka baxaya xabiibi waxaan wali soo waxa waay waa diyaarintii la kamid tahay okay xabiibi waxaan wax kale inaan ku tuso okay okay indaas ku qabo okay isku heesa ha ka sheekay yaa waay qofkaas ma aniga daaminis qofta hadii adiga tahay adii ma iga maqnado ee la joogtaa soo moogid somehow alla macaani taankis waan ka helay wallaahi kusii kari soo dhaqso xabiibi haysaki saabuuntiisa aywa ya saabuuntiisa igu qalal no qubeyska soo dhamaysanaya xabiibi bye bye hadhow ayaan wada hadlaynaa bye bye هلو ورا فتاله هي ساتهي وافي عنها يا جماعة وركسي وافي عنها صاحبه شيدا هي قفتي لعق مكو سو درتي شيد بان لعقت قفت مكو سو درت معها روحا ما هذه بسم الله يا كل شيء يسو درت العقد والله هو يجي جمنت اللباح وحي شيك برو مانت طبعا دور هدي سو قش مسورني بسم الله هي صاحب بري صدر ام سواب كو يمانا اوكي بري هذا اوتوماتيك القتيل تانكس باي اللباح سوري ay
biya ka sata ana ay keenays أنا ما أفكرها كيف كنا أبي هذه أسمع ma asmaata ana tala geemka kaaga jira balan waa shan oo gaarsiinaa Could cross it in here. Hard to get past, but Hoochie. Weston McKennie. Quadrado. Excellent challenge. And a tiny ball. And he's broken free. And he... Can they slot it home? شت Well, that's the end of that for now. زكي ياسر زكي ياسر Oh, great vision. Can he get them level? maxaa kaa qaldan Mustafa ladan ugu dambeysay maxaa ka qaldan brada ciyaar macana noo socotay ciyaarta noo dambeysay qubka mooska ee meesha ku tuuray idinka idin la hadla qubka mooska ee meesha ku tuuray aan ma ka tuuray kale war maanta haddii ay jabi lahay ka war mashaatigayga fiiri gurigan guri askulisma mis guri dad ku nool waay fiiri shaararkeena meel ay yaalaan arkaa mar walba ciyaaraa ku jirtaan waa laga qurux badan yahay sidaan qobka mooska bakaaraha intoo ka mid asima soo lugay meeshaan iskeene ani shaqaa ku maqnaa labadiina guriga joogay labadiina mid kamid a isticmaal mooskaas oo meesha ku tuuray inaad sheegtaan waa diideen soo maahan okay maanta haddii ay jabi lahay idinka lacag ima bixin lahayn isbitaalna ima geen lahayn dhib malan caawa laga bilaabo sharcigan soo degsanan dharkaa isku soo bedelaa waa isku soo laabanaynaa geemkiina ciyaara mar walba ciyaar iyo waxaa loo joogin aa ku jirtiin The end product just wasn't there. qofka moos aad ma meesha ku tuuray Well, the first 45 minutes have come and gone Ah, here in إيه هذا؟ Catalonia. عادي بقى isla waa la lag xaq farmasuulnimo waani wax caadi ma jiraan whatever qawaaniin la'aanta iyo sharci la'aanta qofka ugu weyn ee afacayaan adigoo ahaa Teams have switched around. hadda qawaaniin iyo sharci markii lasoo sameeyo qofka ugu horeeya jibid waa in aday tahay shaki igama jiro De Jong. waa arki doonaa nasiib wacan And he's broken free. oh And he clears it out of harm's way. And Messi carries it forward. What's he going to do from this position? And caught by the keeper. kani waa premier wallet waa habka ugu fudud ugu casrisan uguna ammaansan ee aad wax ku iibsan karto premier wallet fududeeyaha nolosha ay asxaabi waxar naga dami bal baashaan waxaad diminayna male aad waalida nagalkaniya oo sugu xayraday ciyaartaan dhamaysannahay waali ma taale waxar miitina leena waxaan naga dami bal Cristiano Ronaldo. abti waalida ana lasoo gelis maxaa brotherka ciyaartaan dhamaystirna wada sugu hadlina waxaan naga dami waxar This looks promising. okay hey brother waxaa waa maasantihiin horta qodobada sharcigana waa soo qornay wixii aan ka tagana waxaa rajeynaya idinkina ku dartaan taasoo isku raacni soo maahan
bini aadana wax waa ka tagi karaa waxaa la rabaa wixii ka tagay idinka inaad dhamaystirtaan midda kale qodobada sharcigeena qofka jibiye ciqaabtiisoo maraa ciqaabtana waxaa ku qaadayo xubnaha guriga la degan taas waa isla fahna soo maahan marka zaki saaxiib saan waa laga qurux badan yahay soo fariisano miitina lena ujeedaa ku maqlayaa laakiin may waa laga qurux badan yahay fariiso waxir saki kulana leenahay fadhiiso fadlan xataa adiga waa laga qurux badan yahay sidaa u dhaqmaysid okay ku socday waa maasantahay qodobkeena koowaad jadwalka cunto karinta waaye waa la socotaan labada habeen u dambeysay anaga casho la-aanaa seexane waana laga qurux badan yahay middaas habeen walba qofaa cashada ku qoran qofkaas haddii uu cashada karin waaye oo anaga naga baajiya cashadaasi habeenkaas asiga jeebkiisa laga cashaynaa lacagta cashadana asigaa bixinaya magaalada muqdisho maqaayadaha ugu qaalisanan kasoo cashaynaynaa excuse me what dood maa qabtaa of course doodaa ka qabaa because of danaa yeelan karaa aniga wadan waa yeelan karnaa may dan waa yeelan kartaa lama diidano laakiin dantaada soo dhameyso anaga lacagtiina noo reeb maqaayadaha ugu qaalisan muqdisho kasoo cashaynaynaa daas anf wax problema ma jiro whatever okay ayo hay dood maa ka qabtaa ku soco waa arki doonaa waxda aniga waa ogahay qofka ugu horeeya sharciyadan jebin doonaa adi noqonaysid laakiin zakiyow ciqaabteeda waa marhi cid ciqaabteeda loo cafinayo malahan ciqaabtana qofka waxaa ku qaadaya xubnaha guriga la degan sidaa hore usoo sheegay waa ifaan soo mahan qodobkan labaadaa gelinaan nadaafadda waaye qof walbo maalinuu nadaafadda ku qoran yahay qofkii asiga wax cabaya ama wax cunaya meel ku haleeya ama ku tuura asigaa meeshaas nadiifinaya asigaana ka qaadayo waa arrin wanaagsan ku raacsana qodobkaas qof walbana maalinuu nadaafadda leeyahay ilaahu musqusha may kusoo aado jikada may kusoo aado daashka may kusoo aado oo nadiifinaa maalintaas okay qodobkani saddexaad zakiyow badalkii saxiibo maxaa sheegay hadda imtixaan ma iga qaadaysaa may inaa nala socoto muhiim waa mugta xoogaa waa respect kula socdaa waa kula socdaa ku maqlayaa bo may inaa ila socotid muhiim waa turubkan iska dhig qodobkani saddexaad si fiican u dhegeysta bataatan wax marti la dhahay gurigaa ma imaan karaan waay marti waay imaaneen macnaa gurigaan waa soo ma wada degna aniga qodobkaas muhiim waay gurigeena wax marti ah ma imaan karaan meeshaan anagaa degan lacagaa baxsanaa ijaaraa baxsanaa meeshaan meel dadku lagu xanaanay ma ahan meel oo dadka iska imaanaya iskaga baashaalaya maa gurigan kala dambeyn in nidaamaa la rabaa kugu raacsana qodobkaas aniga asxaabaa leenahay famina leenahay may anaga asxaab waa leenahay famil waa leenahay laakiin qof marti iska imaanaya oo guriga kula degayo kula seexanayo ijaarna aanan bixinayn taas ani dulsaaran u arkaa guriga saddexdeena wada degan anaga ijaarka baxsan anagaana degnaanan qof kale marabna anaga hadal hay bataatanba qodobkaas aniga ma kugu raacsani mana kaa yeelayo waay because of haddii aan kaa yeelo iyo oon disaabsaday askal guriga okay fikraddaas waa bedelaha waxaa ka dhigaynaa marti waa ida imaan kartaa laakiin waa laga qurux badan yahay marti oo sariirtiina seexanaysa guri nala joogaysa wax walba nala wadaagaysa waa laga qurux badan yahay martida waqtiga leeyihin waqti hanala qaataan waqtigooda markoo dhamaadan hanaga tagaan sariirta ma il maamule maya waa laga qurux badan yahay guriga keligaa ma degna qolaa degantaha laakiin guriga apartment waa kula degana anaga wixii xaq u leenana waa ka wada hadlaynaa wax walba imaan kara zakiho kugu raacsana aniga markaas waa mahadsanta yaasir ziki adigana waa arkaynaa okay waa arkaynaa ma insha allah qodobkeena afraad u dambeeyey jadwalka cuntada cunayno 9 habeenimo anaga waa cashaynaynaa 9 iyo 5 qof ka imaada wax cashaa anaga naguma lahan hal saxnan wax ku wada cunaynaa kugu raacsana taas habeen walba anagoo baahan qof maqasa u sugayna oo ku daalanaya okay waa adkeynaa macnaha qodobkaas waa adkeynaa 9 habeenimo waa cashaynaa 9 iyo 5 qof ka imaada wax cashaa naguma lahan ziki hal saxnan wax ku wada cunaynaa waalidiin deer ma utagna daal sax wax ku wada cunaynaa ay ku soco waa qodobkeena u dambeeyey afraad oo ahaa ma fahanteen waxaa rajeynaa qodobadan inaan fulin doono sharciyadana inaan ku dhaqmi doono waa fahanteen soo mahan marka de rag waaweynaa nahay gurigeena aan sii degnaan aan u degnaano aan quruxsano oo taas wax aada u fiican waaye maanta sida ciyaal suuqiinta oo kale guri inaan ugu noolaano meeshaan had fiiri meeshaan shaara iska yaali shaarkaaga waaye fiiri maxaa ku hare meeshaan golihii sharci dejinta iyo waxaa ka dhigtay iyo maxaa la dhahaa iyo dowladaa nooga dhigtay guriga aba oo as dhanba oo maasan tahay dowladnimada aniga anficaya kow dheh jadwalka
derbigan kusoo dhejinaa subaxi qof walba wuxuu qaban lahaana meeshaa ka fiirsado waa maasantaa waa bixi kartaa shaleemo miya kaarta aad derbi kusoo dhejinaysa shaleemada waa laga daran yahay dharkaaga meeshaan ka aruursinin weynaa tahay dharkaaga halkaa xabaan leeyahay waraada shaatiga meesha qaad halka xab maxaa inta keena halka xabo ma qaadino qolkaaga maa geshitid saanaa waxaa rabtaa inaad magaalada ku martid ninkii wuxuu xaala sheega uu ka dhameeyey maya muxuu soo qoray zaki musqusha anigii musqusha sheekho waxaan musqusha si fiican nooga nadiifiyo hell no subaxdan subax qar qabta maaha gurigan degenaansho male walaa waa lagu kala tagaa le walaa abaay maxaa tahay waa fiicanahay adu see tahay abaay sababtaa kuu soo maanta ma dareemi kartaa maya maxaa ii soo wacdayne inaan kuu mahad celiyo maxaa dhacayne oo aad maanta iigu mahad celinaysaa waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo wax walbo maqana qaba kuu sheegay emotional ahay wax walbo oo yaranteeni aa noo qabatay ha ahaadaan inaa cunto noo kariso ama aad dhar noo dhaqdo ama aad guri noo hagaajiso everything waa qaaba kuu sheegay waan kugu sii dhamaystira maqaan waxaan doonaya inaan kaaga mahad celiyo ma maanta ii mahad celinaysaa ha sababtoo ah xanuunkeeda maanta ayaan dareemay waa mahadsan tahay abowi maahan inaad ii mahad celisid waxaan kaa rabaa inaad iska kii cafiso maadaama aan ku dhibay yaraanteydii adigo hawsha adag ku jiro aan ku dulqaad iyo ixtiraam darro iyo wax walba ku muujin jiray iska kii cafi abaay macaan dhib ma lahan bes abowi aadaan ku jeclahay mana ku iloobi doono sidoo kale abowi ii nolow hooyo aabigu salaam haye mac salaama